يا قوم ستي بسم الله الرحمن الرحيم ضمان مواطنين الصومالي لان قدر يدبد ميل وري جوغان با السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب صعد كيغي وجددي سومالي دي شيغيا سي كوبان يا مستقبل كان سودو ياهي يا إلى أن كون يا عدو الصومال لان ميل جوغان تكوباد waxaa marka hore aanu aad iyo aad ku mahadnaqaynaa ummadda reer Soomaaliland ee muwaadiniinta dalkooda meel ay joogaan ay arkayaan marxaad ka noqonayaan caynaba inay tilmaantay inay tahay gobolkii difaaca iyo gobolkii xornimada doonka ilaa maanta u taagan difaaca qaranka inay muujisay oo cod iyo muuqaal iyo gacanba ku muujisay hadday tahay ciroolahooda iyo hadday tahay caruurtooda iyo rag iyo dumar maanta waxaa muujisanayaa dhammaantiin diyaar u tihiin difaaca qaranka iyo in la ilaaliyo gobonnimada iyo madax bannaanida Soomaaliland oo aan cidna la wadaagin taa aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa soo baxaasi muu ahayn mid gobol wuxuu ahaa mid qaran dhisa iyo mid Soomaaliland oo dhan tusaya halka ay maanta caynaba taagan tahay mahadnaqaa kadib Soomaaliland maanta haddii loo eego dal ahaan muddadii dheeray soo jirtay waxay joogtaa meel aad iyo aad u wanaagsan oo aan looga baqayn cidaysa soo bahaysatay iyo cadow dibad iyo guud ka hadla midna aan loo dhigin oo aanu leecin karin baa muujiseen maanta walaalayaal maanta waxaan u soconaa laba koofiyood baa sita midowaa koofiyadda oo koowa difaaca qaranka dhammaan Soomaaliland muwaadiniinteeda iyo gobollada maanta waa maqlaysan intii aanu maray waa la isar xamalayo siciidtuna aad bay imika maalmaha loo tuujinayo daad mareed waxgaradkiisii iyo odayaashiisii laba qodob baynu isku raacsannahay labada qodob waxa weeye iyo Soomaaliland oo dhan difaaca qaranka waa koow tala wadaag iyo doorashaduna waa laba marka maanta waxaan u sheegayaa dadka shacabka saraar meela joogtaanba iyo goboladan culayska badan saaran yahay inaydaan kale ku ahayn ee Soomaaliland difaaca qaranka iyo hawsha jirtaan haddii aan ahaydeen way gaabiyeen hadda ay u soo degdegayaan kala mid yihiin waxaan ogahay dhalinyarada iyo waayeelka iyo hablaha saraar iyo aagagani inay weydiinayaan waar maanta maxaad wadana doorashadu waa maxay raadinaysaan oo taa ay weydiinaysaan oo qaarkii la yaaba yahayna aad iyo aad baan u garanayaa doorashada maxaynu wadaa waxay u noorana waqtigii dawladda madaxweynaha la doortay uu dhammaaday waa la kordhiyey waa dhammaanayaa walaalayaal waxaynu wax ku nahay marka aynu talada wadaagno aynu ku wada qanacsannahay sharcigeenna inaynu ilaalino marka waxaa isku soo beegmay iyada oo mar la kordhiyey mar labaad sharcigu ma ogolaanayo caqliga saliimkiina ma ogolaanayo culaysna weyna haystaan aynu arkaynaa waa jiraa dhibaatooyin badan baa jira oo laydinla daraysayay oo laydinla qaybsanyay dabeetana waxay dantu noqotay inaynu sharciyadeennana ilaalino aynu doorasho qabanno dalkeennana difaacno intayna tartamaysa intayna ra'yiga kala duwan leh dhammaan waxaynu ka midaysannahay difaaca qaranka iyo wixii cadow inoo soo mareegaba inaynu dharbaaxa kula kulkunno guda iyo dibadba dhammaan gobollada Soomaaliland taa way ka siman yihiin in badan waa maqasheen gobolka awdal baa la ruuxay dhinac walba oo lagala hadlay meelaha aynaan ka filayn baa wax ka walwaaqay shacbiga awdal ee gobolka Soomaaliland dhammaantood say u soo muujiyeenna markhaati baa ka tihiin oo midiyaha ka daawanayseen meel wal oo Soomaaliland laga daafacayana ilaa 19 inagala mid bay ahaayeen intii ka sugaysay hadalkeedaba daa marka walaalayaal qodobka halkaas ay u dhiganaa labadaba waqtigoodii waa yimid oo waynu u baahannahay difaaca iyo doorashada midna waxaan ka odhanayaa cadowga Soomaaliland cadaadoo kulul awgeed ama soo koobaya shalay waxaan ka hadlay jaamacadda qalinjabinta jaamacadda Burco waxaan aad u xogay yar tilmaamay dawladaha aan garan lahayn halka ay nagala qaadeen ee odhanaya Soomaaliya waa midoo waa taxamar joogto quwa dawladahaasi ma indhala ma war laha laakiin waxaan idin sheegayaa dawlad waliba
waxay eegtaa danteeda ee cadaaladda ma eegto yaa xaqlana ma eegto walaa jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa walaa quwadaha waaweyn laba tusaale tuseeya tusaalaal badan dalka Kongo la yidhaahdaa waa dal weyn oo Afrika ugu weyn waa dal qani ah oo wax alliya waxa adduunka laga ilaahay ku abuuray hadday tahay macdan hadday tahay biyo hadday tahay geed wax walba ilaahay ku abuuray oo qayb cajiiba ilaahay ka siiyey ilaa maalintii gumaysiga ilaa maanta dadkaasi balaayo iyo qax iyo dil iyo xabad mooyee khayraadka ilaahay siiyey xukay macaashin taana waxa ku dilaya nin doonaya inuu khayraadkeeda qaato marka cadaaladda ra'iisul wasaarahoodii u horreeyay waa maqasheen ee la gumbaha waxa loo dilay markuu dalkan annaga loo maamulayna ayaa la googooyinta la dilay dowladda waaweyn oo la hayaa si loo gowracay Belgium gowracay iyo qolaysiyaayad walaalayaal waxa la mid ah badan oo kale oo eeday waxa macanta ilaahay siiyey iyo khayraadkooda hadday cadaalad iyo isu nixid iyo dowladdu cid bay eegaan iyo cadaalad bay eegaan waxa ay nagaga filan oo maanta taagan arinta ka socota Gaza iyo Falastiin dad waxa u xiga Arab iyagoo ololeynayo oo subax walba aragtaan xaafado duqeynayo meydku caruur iyo tuumuur iyo ku gaboobay iyo ku buka meydku risayahay ayay kuwa u xigeen Masar waxay leeyihiin waxa dhexdhexaadinayna Israa'iil iyo Gaza oo Gaza maxaa kale oo dhexdhexaadinaysa sida xayriya oo weerar galo xarako wada baastaan loolanaya arwada meydkooda xataa Masar tayno hajaraysa waxay furi kareen meesha rafax la yiraahdo ee cuntada soo marnahay haddana shalay waxay ku jireen ergo ay istareen hadii marka waxaan sheegay Soomaaliland wixii ku dhacay ee 60kii qaladkii ay gashay ku dhacay ee maanta ilaa maanta xabad u dhacaysa waa taas oo kale tusaale maxaa waa hadaba saaka intii la dhageysatay iyo xalay waxa hadlay shalay jibcihii ninka la Xasan Sheekh ee xabar jooga waliba kaaga daranta masaajid Ilaahay lagu caabudo ku hadlay wuxuu ku hadlayna runna ma ahayn cadaaladda ma ahayn garna ma ahayn minbarkii sheekhu ka wacdiyayna wuu taagnaa taasi waxay la tusaa dadka aan la hadlaynaa aqligoodu wali waa sheekh ninkaas hada quraanka waa wadaad sheekh way takaraad waxa wata jaamacad weyn haddana masaajid wuxuu ku hadlay wuxuu yiri badayada wuxuu Ethiopia ayuu la hadlay wuxuu horta dalba inaga haystaa iyada annagoo kaasay ugu ciil qabna ayay haddana yiraahdeen badii Soomaaliya ayaanu bar qaadanayna bal hadda gardarada qaldan baan ku sheegayaa Ethiopia hadday wada hadlayaan maxaabada Soomaaliya soo galay wax kala ka wada hadlaa badda Soomaaliya uu sheeganayaana waa badda casir Soomaaliya leedahay mar qura ma oranayo Soomaaliland baa wax geysatay iyo Soomaaliland baa naga go'aysa wuxuu leeyahay ma soo qaaday Soomaaliland wuxuu u qabaa wixii dhacay ilaa dhicin wixii Soomaaliland ku dhacay 4 sanadood ee awal waqtiga caalamku ka marxaati yahay ee taqaza ka adkayd wuxuu indhaha iska tirayaa inaanay dhicin waxa kale oo indhaha iska tirayaa inay Soomaaliland 4 sano iyo isagu ay kala dowlad ahaayeen oo aanay waxba wadaagin dastuur ma wadaagno dowlad ma wadaagno diinta islaamka iyo Soomaaliya laga dhaxeeyo haddana wuxuu leeyahay aniga xukuumad ma la soo maro waxa ugu marxaati furaya dowladaha ay ka mid yihiin Qatar iyo Turki Djibouti iyo meesha la yiraahdo Masar waxaan loo sheegay hadda maxaa Soomaaliland oo diiday dowlad waliba danteeda ayaan ka dhaxarkayn horumarka Soomaaliland dowladdu waxay ku daashay Soomaaliland inay hadal iyo sasabo iyo maxaa ku raacdaa dhaqaale ay mid ku soo gacan gelisay inay ku sii xidhnaato midowga ayaday 60kii sano markuu sanadka 60kii haddaba Xasan Sheekh ida taageeraysa waxaan sheegayaa wax walba waxa ka weyn go'aanka iyo aragtida ay Soomaaliland uga go'an tahay intay ifka ku uuman tahay ee Ilaahay halka ku abuuray inaan weligeed Ilaahay mooyee qof ajnabi ama qof bini'aadam Soomaaliland rahay aanu taladeeda go'aan ku yeelan ee xor u noqoto ugama fadhiyo dawladda ku ixtiraaftay iyo hebel baa ku ogolaaday
إله واحد أيوم أرنتها أن كبر يكره أو نوع قاكرة عيد كلا أو قلا شرقة ودينا مو حلقة سيرية شيري ميسو ما أنت ما تكتو بريتنا شيري ميسو نكي أن وضع هذا الله أن وحسب درسنا أن إسكهرنا أنا مر لبعض قدامين عيد كستوى هذه أيام تلو ذاك كره أي كوكتهاي إلى نهاي لباس سمان وهذا الوذاك كره ووحي كوهشيانا وحقران وأمد كيسا وأهاله أيوم بان وذا هذا الجري كره ما خذ يلا كره سيدا درت الوالين ديك تحسن الشيخ يقول الدريسة ودبت شوكتها وين نقول عليان دقال كودنا واقس كعرينا dhibaato kastana waa u maraynaa horaba aabbayaashin baa u soo maray awoogaashin baa u soo maray weliba seeraar iyo caynabo imika ka hadlaayo taariikhdeeda waa la yaqaanaa idinka dardaaran badan laydinka siin maayo oo waa joogteen oo imikana waa u heegantihiin oo waxba laydin fari maayo laakiin waxaan farayaa dhallinyarada yaryar ee da'da yar ee la kortay casrigan IT-ga ee telefoonada wax ka dhageysta ee telefoonadu wareeriyeen ee boqol waran jirin lagu baabilayo taariikhda Soomaaliland iyo adkaysigiina iyo waxa soo marteen inaad u fikirtaan mustaqbalkeena inaynu xaqiijino inay ahaato dawlado sida kuwa dhowr kun sano lahaa ee aan la dhaqaajin China kamida kun sanood baa China garaacay si walba loo dagaalamay cid walba way isugu tagtay deerkii kontajina way garanayaan China oo dadkoodu xulay shaaris war kaliya markay dhisay laamidaasay nacaawinayeen China ay nacaawinayeen laamida dhisay ee imika adduunka ugu xoog weyn ugu lacag badan miyad waysan sandaliyaro maxamed xaaji ibraahim cigaal oo prime minister Soomaaliya ayaa shicibada qurba ka dhaxayso uga doodayay inay xaq u leeyihiin oo kursigooda la yiraahdo vitada hal siiyo ajeedina doontahay miya ka aragtay baalka yar ay teedo waalaya ma wax weyn baa moodaysan halka in noos kasta inuu yahay maxamed xaaji ibraahim baa hawl codkiisa waa duwaya isagoo u dooday xaqooda hal siiyo China maantana waa aragtay adduunka ku maranayo miyanu sagaal bilood ku dhalan ma inaga toddoba ku dhalanay miyanu qalbi adag yahay miyanu adkaysi badan yahay abtirsiin miyanu awiyasha geesiyaal ka badan yahay waxa weeyaan soo marayeen muu soo maray hadduu soo marayna waa la mid tu kasto way nagu day qarnimada ay noomida foodka adeedii maxaa loo galayaa midnimadeenu xoojinaya midnimadeena ayuu xoojinayaa waa in la waayaa Soomaaliland geedu ku xoqday ama wuxuu ku wareegay waxa laga qayb galay foodka waa la galayaa qaranka difaaciisa foodka u socda dalka wixii dhibaato loo geystay in laga rogaabo soo socda ma aha food u tartamayo magac iyo kursiga gaar laga doonayo dhamaantiina intaas maanta ku dardaaraya waqtiga yar taasaan u socona taxilkii madaxweynenimada oo difaaca ku yahay danaha saraar iyo caynabana way ku jirtaayo haddaan danaha saraar iyo caynaba laga hadal difaac hirgeli maayo sidaas gobol walba aan u maraynaa oo labada qodob ay tahay marka saraar wixii hawreeda ee qaranka wada siman tahay ee ay tabanayso ee baahiya day laga dhowri maayaan madaxweynaha wala ii sheegaya waana ku qasbanaya dhageysto waxaan ka qaban kareeda ka qabto wixii kale waqtigeeda laga qabto caaqilku wuxuu saraar laga dhigo gobol caaqil saraar marka si loo eego gobolleedu cid bari mayso dal ahaan hadii loo eego waa degmada ugu dal weyn Soomaaliland oo dhan iyo ummado badan marka dal ahaan way qarantaa dal ahaanna way abtirsataado dee saraare waa gobolka Saldalada taasina soo loo baaha haddaba maxaa noo siilaayay deedaha waa madaxweyne waxa uu sheegtay maxaa hayata wax kasto la fulinayo oo dalka qaranka laga fulinayo wada wax loo maraa shuruucda dalka shuruucda dalka intoodii badneed waa haysan waa wax gobolada ku magacaabay shuruucda inta ka dhiban bay buuxinayaan inuu wada jira oo aanay ahayn geedka dabada geliyo lugta ku sii ahay ma aha shuruucda xafiisadeeda dhexdooda ka siman ee la soo wada marinayo ayaa la soo marinaya insha Allah dhawaana waraqaas way soo dhamaanayaan suuda mabdaahana ورث رأسنا وحنا يوقع تهرت الدلك ده هالكلام مركب شراء إلى أنا والله هذي لو رسكت درما قاله إذا هو وقتي تاريخ ذي هذي اللي قال ده وحبا بالله شكريا أنت قالك لا دافعية مركا أنت سيارة ورد كوهين
قرضاً باخ قراعة بالتين سوشيال ميديا إنه قسم يصير وشرعية كده يديرون كبودو وحكاوي بسوق عشان عرفتها متشتون وأنا ضمانيسه عندنا ما كرس سومالي اللي أتبوس كل حسنتها سرار واللي بديه قرض يضح في سيدا أياها ولهوده دستورك وين هذا واركته أما وعده بدأ الشيخ يض مركب وخلوا عليه مركب ضلك وقر قاضية سجانية توسع عرض بكانه وحتى لو قلنا كان شرعي وحوي مستقبل كإنا وحالة تشيل لعن وأنا قال كسب بحل مركز صار الله بصدوه مركب وحلا سلامين أيوم بالله هذا التاسف راكتنا وح اللي وح عيد ما تسرار كم مرمسة أنت علاقتي وحقا أنت ما شفتون لكن شرعي ذا لو قص بيسه تانا وانا قد قاضي نسان وأنا كنت ذا لا ينادي تشيله هذه أدوال ما تأتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.